lacagta aniga laga qaado haddaan xisaabo xij waa igeysa lacagta aniga laga qaado haddaan la kulmiyo la isku daro oo ayagii gacantoori ay ka soo noqoto xidka waa ku aadi karaa qoragan waxaa igu kallifay oo ii dhiibay waxaan ka mid ahaa jiray nimanka loo hanjabo oo shabaabku yiraa qabaa'ilada ka Kembaaso Mawliid Macow Tooxow waa nabadoon ciilan oo aan kula kulmay jiida hore ee dagaalka waxa uu nabadoon ka ahaa Miir Taqwo waxa uu u dhaxay dadkiisa oo nabadoon uu ahaa iyo qawaariijta al-shabaab balse waa uu qaadan waayay qaladaadka qawaariijta qoray ayuuna ka qaatay Mawliid kadib markii ay u direen in lacaga baad ah uu ka soo ururiyo dadkiisa waxaa lay diray lacag waxaa lay diray inaan tiriyo qoys kasto degan waxay ilma leeyihiin odoga haweenka gabdhaha igaarta xoolaha beer maxay ku tiirsan yihiin warqadaanay ku qoranta intaasaa laga rabaa inaad kala bixiso markii dadna laga qortay dadna ma awoodi kara uu leeyahay anigu waxaan la soo taagnaadha ma awoodi karo dawladda jirta maamulka waa la kala haystaa waddanku waa kala xiran yahay baasadan aan sida waxaan idinkaga soo qaadaa dad maamul hoos joogo warqoortayda u maqan qabiilkaadna tihiina wax iga dhiibaan oo dhahayo tuugayo haweenka oo qabana ma aqaano ilmaha oo dhalana ma aqaano waa mahadsantahay leeyiray adiga gooniyaa tahay guri 2 mitir oo dhagaxa oo fiidow ku yaala qablaygu si nabadoon Mawliid markii la xiray waxa lacagtii soo ururiyay dadkiisa oo isxilqaamay balse markii ay soo deeyeen ay mar kale qawaariijtu u direen inuu soo tiro koobo dadka uu nabadoonku u yahay tiradooda iyo lambaradooda haddii ay tahay xaas la qabo gabar aanan weli la guursan iyo hooyo waayeel ah balse mar kale ayuu ka hor yimid ninkaanow anigu oday haddaan ahana naagtaada nambarkeeda sheeg ninkan idhaahaway naca heshiimayno aan idhi naagtaada nambarkeeda sheeg waa shirib ninkan idhaahaway naca naagtaada nambarkeeda sheeg nin jecel ii ka laftoora i su'aala naagtaad qabta nambarkeeda sheeg haddaan idhaah ma si kale ii damooha ma awoodi karaa nin ila dhashaa xamar joogo ilmo u dhalay baadiyaan joogaa xamar ma tago ilmihiisa hebel ma dhihi kara waa lagu dilaa amba sheeg waa xaaje aan shareecada islaamka waafaqsanayn waa xaaje qoorweyn qof kasta oo qawaariijta ku hoos noolaa sanadkii waxa uu naftiisa ka bixin jiray $110 oo ay ugu yeeraan jisiyo taasi oo aanan bannaanayn in laga qaado dadka islaamka ah kamid aan ahaa jirnay nimanka gaalada dagaalaysana aan ahayn islaamkana aan ahayn oo lacagta loo diri jiray xilligii asxaabtii aheeda kamid aan ahayn lacagta la qaadaaba ku amicnaheedu ahayd lacagta aniga laga qaado haddaan xisaabo xij waa igeysa lacagta aniga laga qaado haddaan la kulmiyo la isku daro oo ayagii gacantoori ay ka soo noqoto xidka waa ku aadi karaa waysan ii kulmin waxaa ka mid ah lacagtaas lacaga aan dayn ku jirsha oo naftayda aan ku fura oo madax furashaa oo dayn ahaan laygugu leeyahaba nabadoon Mawliid Macow Tooxow markii saddexaad oo ay isqabteen qawaariijtu waxa uu kula dooday in si qaldan ay u qaadayaan lacago ay ku sheegeen sako oo aysan u soo marin wadadii saxda ahayd anaga laftayna madhaba oo sisinta inayna sakawaad ayna lahaynan aan haysan waxay keeneen laptop oo ay leeyihiin madhabtaanan anagu haysana tanaadna ku baxaysi sisinta inaan laga qaadi karin inaan diidnaa timiday sisintaas si kamale aan dhahan laptop ay noo keeneen
madhabtaan anagu haysanaa yiri tanaana ku dhaqmaynaa tiinu baadil waaya maahanoy ya waxaana xoog badaysatii qoray sideeto ka xoogan u dareensannahay marka maahe sharci nagulama waafaqsin waxay yidhaheen sekada saad idinku ku qaadi jirteen 10 neef hadday cayilantahay sekaa ku go'ayso ilaan waa waaweyn yihiin soo dhibaato maaha kitaabka tiradii sekadii ku go'i jirta maano tiradii sekadii ku go'i jirta uma baahna yidhaheen ilaan 10 waaweyn waaye yidhaheen haddii la iibsho 40 dhamaahayaana yidhaheen neefku hadduu cayilan yahay 3 neef u dhigmay 3 neef u dhigan yahay yidhaheen ku bixi ma oo shareecadu ma qabtana ama dhigi kartaa waxay ku xigaysa qoragaana qabo mawliid macow tooxow markii ugu dambeysay oo qawaariijtu uu qoriga u qaatay waxay u direen inuu soo xalliyo gabar aanan weli guursan oo ay ku kuufsadeen 3 ka mid ah qawaariijta waxaa ka mid ah oo aan jawaab ka bixi weynay nagalana sii waayay inaan soo aragna annagoo nabadoona kufsi gibir la watay ee xafiiska hore gashay markay xafiiska hore gashay rag dhalinyaro ahaa watanimaya idinkaana mas-uuliyiintii ay jawaab naga siiyaan dhahna waxaas waa dhaceen laakiin cafallaahu yayna yidhi cafallaahu adiga uun wax kastoo dhaco xun iska cafi waxaa lagu xalliyey ummadda muslimiinta u baahneeday waay adiga xanaagi ma kartid muslimiinta ay tageen akhyaarti ma tihiin nabadoonnadii ma tihiin cafallaahu dhaha axmed salaad warbaahinta qaranka